muqdisho waxaan ka duubaynaa gabayadii dadkii hore ilma guurtada ahaa oo cismaan rag badan uu ka hayo gabayo badan waxaanu ku horumarinaynaa faarax nuur wixii gabayo uu ka hayo faarax nuur gabayadiisii inta aad ka hayso oo weliba aanu jecel lahay gabay walba siduu ku yimid hadaad u hayso iyo gabay walba ama intaad ku luuqeyn karto haddaad luuq ay leeyihiin ama ka wada dhaxaysa ama mid u gaara soo dhawow. faarax nuur wuxuu ahaa nin markiisa hore u dhashay reer Hargeysa laakiin isagu wuxuu ku dhashay ood weyne dhistay ood weyne mashruuca sababtoo yeeshay dadku marka hore wuxuu ahaa dad badan reer bariga oo bariga loo badnaa qolada ood weyne degtaana way dhashay hooyadii baa ahayd faarax nuur gabayo badan ayuu lahaa waxaan hayo iyo waxaan haynba way leeyihiin waxa maqana waa la heli karaa ama halkana laga heli karaa ama Hargeysa laga heli karaa ama dhulka baa laga heli karaa rag badan ayaa jira oo nool marka faarax nuur gabaygaan kugu horeysiinaya waxa weeye liito wuxuu ahaa nin halgan in doora kusoo jiray marka faarax nuur wuxuu dhaliilay nimankii uu ka dhashay meelo badanna way kala yaaleen marka waxaa la yidhi faaraxow maxaad kuu diiday inaad kaftanto ama qosasho ama sidii caadiga ahayd ee bini aadmigu wax u cuni jiray u cunto maxaa kuu diiday gabay buu kaga jawaabay kuwa dhiita ka meeray kuwa doy u dhiyaalay cabdalla dhagaxyaal nimanka dhuurta burco dhanahan shubanaya inay dhiba xirsi waa bursuug nimanka la yidhahdo boqorkoodu ahaa inay dhiba xirsi intaasoo isku dhaaban ilaa aan dhex fadhiisto dhalashay kuma sheegto dhunaya kuma quuto dhagxumay kuma diido ma dhakooda habeen dharaaray kuma seexdo qosolo dhoolahayga kuma soo dhici maayo waa geeraar waa geeraar waxaa ku iyo wacdiga waxa dhaliishiiba weli ku jira waay dhaliishii tolkii ayuu weli ku jira wuxuu yihi wacdi laguma karo niman dhagaa waafika ahayn wacdi laguma karo niman dhagaa waafika ahayn adduunyu waa wegle iyo haashino waa nimanka beri yaalla adduunyu waa weglo iyo haashinow wariya sheeg annagu ceebtii ka weysaysanaya waayihii hore haddaan nahay reer Hargeysa annagu ceebtii ka weysaysanay iyo waayihii hore mayalweynta reer celi arab hadday wada walaalowdo sidii adhi waraaba u dhexgalay laguma weereen sidii adhi waraaba u dhexgalay laguma weereen wacdiga markaasuu yahay haddaba haa wacdiga laguma karo niman dhagaa waafika ahayna sidaan arab u wada weyn ahaan wax ugu sheegaa kol haddaan waxaa yeela iyo waana kala quustay sona dantay waareeya ugu wanaag mahawi kaasuna waa gabay waxaa dhacday waxay culoobeen ogaadeen aa la culoobay ogaadeen baa kusoo diray nimanka ogaadeen maa nimanka reer isaaq la yidhaha wayba reer cali la yidhaahdo ayaa had iyo goor aan dagaalami jira reer haruunku waan laga baryeeya reer caligaan isqaabisanay reer caliga xooggiisa oo nimanka la yidhaha reer fiqi cigaal nimankaasaa soo duulay geeri bay gunta ka jareen habeennimo waa la isku soo gaaray geeli waa laga dhiciyey markaasuu gabay bilaabay sabaankii dhaweyto fiqi cigaal sidanku noo keen buuyi saaciisu nima buuxsamay oo samada eegaayay inuu socodkii hore doonayo waa san la hubaa nafta saacad yowgii ka hadhay iyo saldhigi waa saqda dhexe siyaaxeey haddii weerar lagu saray sirgadaha haddii lagala dhacay sararta guudkeeda
kolkii gabanta yara saacad seexatay ee nabadta siicaysay siidhiga markiina la dalbaday saw jirnada mawd suubay raggii maali jiray soo sawaxayeedh siblaheeda waa ooli jiray soo barqaawani sinji iyo abbaa nuulahay sabada meedyaal sinji iyo ab ayaa nuulahayn sabada meedyaal ninba sarada meel baa ilaa uga sameeyaa annaga soortu nama kaafido iyo subaa qandheeri waal saca lo-da annaga soortu nama kaafido iyo suba qandheeri waal saakaaba loo dhiman lahaa subce heemaal sanqaraada ceeda qalbigu saaki noo yahay dhagaa lagu sirdamay qaalmaha noo soo korahaayo kuwa aan idinsu daareenba waa naga sikeeyeen qolow markaa ku laabay reer samatar baa sayla iyo sudaba kuu yeel reer samatar baa sayla iyo sudaba kuu yeelle sakaaraysata iyo surta iyo sabaqa rugtaba sanadood kula noolaan kartaa sulufta cayleed buy sanad waad ku noolaan kartaa sulufta cayleed gabaygaas waa kaa waxaan xusuusnaa luuq si loo luuqda lafteeda haddaad ka taqaan luuqa wallahi luuqda kuma wanaagsan fulaha dhumanayo fulaha dhumanaya wuxuu dagaal baa jira loo ballamay indhaguba la yidhaah indhaguba markaa wuxuu arkay rag yaro baqaya oo aan ku kalsoonayn dagaalkii inay galaan markaa wuxuu yidhi u sheeg ma badna gabaygaas waa geeraar yar u sheeg hadda dadku inuu wada dhimanayo oo nin walba xabaddu karto oo nina laba nafood lahayn wuxuu yidhi fulaha dhumanayo horta ma nin baa dhowr nafood le buu yidhi ma nin baan dhimanayn ma nin ayaan dhimanayn ma nin baa dhowr nafood lahoo mid loo sii dhigayaa buu yidhi hadhowta la gelinaya marka dambe ee la dilo geeraarkaas waa intaasu ku dhan yahay intaan ka haya cambuulow cambuul wuxuu ahaa nin roo gabdoona nin roo gabdoona oo ciidagala ah ayuu ahaa waxaanu ahaa nimankaanu israacnay ciidagala iska raacnay markaa waxaa la isku yeelan jiray huwan roo gabdoona iyo arab huwan baa la isku oran jiray markaa maalintaa ballaan maalin la yidhaahdo meel la yidhaahdo yaa lagu dagaalamay wuxuu arkay cambuulo aan gabaygii aan dagaalkii cambuulo aan dagaalkii siduu ahaan jiray u wadin buu arkay wuxuu yihi cambuulu sheeg inaad ku garanayso eexadan u eexanaya uu nimankii la dhashay haatan u jig dhaqaaqay u sheeg wuxuu yihi cambuulow ku dhaliilay cambuulow ku dhaliilay igu soo dhamalowde ma jidhkii baa ku dhaqaaqay faraska cambuulle waxaa ohan jiray dhuuryo cad warkaca oo dhuuryo cad fuul warragga laaya dhankiina buy gabaygaasuna geeraarkaasuna halkaasu ku dhan yahay maxaa kuu haray faran lagu qali doono gabaygaasu waa gabay caana dadka waa wada yaqaan siduu u badan yahay waxaa dhacday muddo yar ka horteed baa la istilay aanu istilay nimanka ciida gale markaa waa la kala badsaday dagaalka dabadiisii baa erga timi aan daacad ahayn ergo aan daacad ahayn ayaa timi odhanaysa waana heshiini markaa wuxuu yidhi u sheeg nimankan usoo indharidaya nabaddan inayna jirin u sheeg ee la qiyaameynayo wuxuu yidhi qulaab iyo culaaf iyo kulaab la isku qabanaayo wuxuu ahaa faarax nuur reer bullaxaad markiis hore magaaladiisu bullaxaad bay ahaan jirta markaa intan waa alaabtii kalluunka
shaqadii kalluunka intaba ku daray culaaf iyo qulaab iyo culaaf la isku qabanayo booraan afkii laga qafilay qabadna hooseeyo doqon baa halkii lagu qatay qoorta soo dhigane maana midiya qiyaamada halkaa taalla in qunuga soo jeedo war maana midiya lagu qarshaa lagu qalin doono waa lagu qiyaamayna markaa taas waa aragti markaasuu murtidii u degi war waa lagu qiyaamaynaya rabbi qaawey waa hee lagu qiyaameynayaa arabka qaarow qayrada xaggee lagu wadaa qadow ka meeraysa qalqaloo candaya geedigaa idin qadaacaya qalqalooca daya geedigaa idin qadaacaya qaandhaawahoodii maxaa qoriga loo siiyey maxaa qaalmahoodi rasaas loogu wada quuray qoontiiba lama baranine qaan yaraa nabado awalkaasaanu qaaraanka guud kala gooyaa la yidhaa gabayga kala jar markaasuu maanta runta u sheega daba awal baanu qaaraanka qaafada ismaaciil jibriil qoonka sacad muuse qaafada ismaaciil jibriil qoonka sacad muuse awalkaanu qaaraanka guud qayb wadaag noqon ka qamaadna goolkii wankii qada weynaa qajiju haddii la geena iyaga qulka dayreed qariirka iyo gowska ayaynu nahay qaranka daa-uud waryaara kala qursana qoomal aadawi kaana halkaas ugu dhameeyey isaaq waxaa yimi ingiriis dalkaba waa marka ingiriis yimi ee soo galay dhulka ingiriis waa siyaasi wuxuu la baxay waxay odayaal ahaa waa la heshiiyey heshiisaan daacad ahayn aan siyaasada ayuu la heshiiyey markaa wuxuu u sheeg inaan heshiiskaasu daacad ahayn ee wax ka hooseeyaan wuxuu waa duni adduunka waa duni la kala iibsaday oona la ogeysiin waa duni akhyaartii ahayd iibgudoon tahay orgiga yaa riyaha qaadaxa oo ooda faaliga waa duni hablihii loo ogaa aqalkii daydeen waa duni xaqii la arkayaa oo la harjumayaa afka iyo qoraalkunbaa hadhaye oodin sidarkii taas waa arartii niman yo isaaq xaajadaa lala aguugaayo odayaashan loo yeedhay ee la anfac siinaayo asxaabihii bayna yidhi gaar ha aamini haddaad niman islaamiya tihiin aadan qoladiisa oo aydaan ilaahay ka goynahayna oodina buuri kaasuna halkaasu ku dhammaaday faar halkaasu kugu dhammaaday wixii dambaan ku helna waan kuu keeni doonaa salaan carabay gabayo badan buu lahaa dadkuna gabayada salaan had iyo gooraale wuu isku qabtaa waana ku murmaa sababti waxa weeye gabayadiisu waxay u badnaayeen af ajnabiga ku jiray oo afafka hindiga ingiriisiga carabiga soomaaliga intaba uu ku gabi jiray uu ku dari jiray gabigiisa dabadeed salaan wuxuu ahaa nin weyn oo gabayaya waxaanu ahaa nin reer bari ah nimankaa caynaba dega buu ahaa iminka dega waxaana isu gebi jireen had iyo gooraale ninka cayndhuux la yidhaahdo bay badanaa isu gebi jireen wixii kale gabay guud ee soo kordha mooyaane caadiyan waxay isugu gebi jireen ninkaa la yidhaahdo cayndhuux oo markii salaan dhintay salaan baa labada geeri horreeyey nin baa la yidhi ay salaan isu qola yihiin salaan dhimay cayndhuux ma dhintay buu yidhi maya baa la yidhi ilaah waa noo guda buu yidhi haddaba haddaad salaana dishay cayndhuuxna soo reebtay ilaah waa noo guda buu yidhi keebaan kaaga bilaabaa haddaba gabayadiisa kugu hor qoran adiga lahadaasi soo maha maya waa kii da-diisa ku sheegay la-da gabayga laanka iyo ba'da yaan loo yar ku ahaa inuu awowgi loox ugu dhigay oo liil gashanahay
lecture French niman baa akhriya laa yariya been oo weliba laaximayntii dib isku moodaan buu lixdan kala biyo toban dul maray waana la hubaa laglagad baan haystay loo dabeeleed waxaan runtii ku taagi jiray leedahay araxdii lafta dhabar lamaana xubnaha laafii socodka waa talanimada indhaha aragiliita laanjeeridan qabana barbaar ladina waa moog nin labaatan joogiya adduuna waa legdamayaan nin labaatan joogay iyo adduun waa legdamayaan ninkii yaraan ku loo farayna wuxuu lumiyey raacdeen ninkii yaraan ku loo faray wuxuu lumiyey raacdeen liibaan dhulbaanta iga helay laa lusay mood ku laabuda shisheeyaha ninkii la habsi moodow laaqlaaqsadaha waa nabcaha laanta dheer sida ninkaas uu leeyahay laaqlaaqsadaha markuu leeyahay seedigii ruma ma ahayn ee nin kale oo ay gabadhu isku qodan yihiin oo u yimi buu ahaa laaqlaaqsadaha waa nabcaha laanta dheer sida adigoon lama adhiina wadin ama ligood geela dhibaad adigoon wadin sida waxay kusoo lugan waa lahasha waa ceebo buud kabaga salaanka ugu horeeya halkaas ku dhamaaday intaan anoo ku hayo waxaa is dilay daahir faarax axmed faarax muddo doorana cow bay ahaay maalinta dambe waxay ku heshiiyeen inay maanta kala hadhaan oo isku soo guuraan oo qola un adkaato maanta salaano waa nin aadan madooba waa jilib saddexaad oo aan labada midnaba ahayn guudka un mooyaane labadooda qole ka gaaraysan marka heshiiska wuxuu noqday inaynu meel heblaaye maanta qolana ka maqnaan qoladeenu naaga iyo carruurta iyo xoolaa taageersato marka sidaasaa lagu heshiiyey meeshiiba la isugu yimi iyagoo wada jooga labadii qol aan weli laakiin waxba isku ridin yaa salaayimi wuxuu war ma isdilaysaan haa ma waxaa ku ballanteen inay isdishaan maanta haa ma idinka dayin maya haddaba aan gabay yar baan idin tirinayaaye gabay yar baan idin odhanayaa dabeet intaan gabaygaa dhamaynayo dabadaa isdisheeni iga dhegeysta raggii wax diidiyo wax yeelaba waa lahaa laakiin go-aankii waa la yeelo waxaa idhi kolle anagu istayn mayne adigu waxaad odhanayso iska dheh wuxuu idhi geedihii curcurood waa geeraar geedihii curcurood iyo cayn baa soo darbateen dheragaydi cunaaya caanahaydi shidaaya wartada coolka joojoo kala cawdo bilaysta nin habeenna casheeyey cadal aan had lahayn iyo ceeryaama isugu toosta inuu caafiyadiisa cidla meella fadhiisto ciddayna waa laga waayay wartada coolka joojoo kala cawdo bilaysta cad xaaraan iyo been cimrigiinu cunayay cirana ahaata caddaysay cilmi naafici maayo wartada coolka joojoo kala cawdo bilaysta labadiina talcule sidaa urcada soobay isu cubaridaayana cunuqyaan ku lahaa u sheeg waxaa aniga iga gasheen labaduba waa dileen wada waa ka fara badan yihin mid walba godob buu ku leeyahay haddaba iyagana u sheeg bu waxad ku leedahay labada kolba ku raaca baana adkaanaya sidaa urcada soobay labadiina talcule isu cubaridaayana cunuqyaan ku lahaa maalintii caris gaabo curadkii abartay caaqilkii maxamed shantii ceeriga yiil iyo carifiin ma ilaahin buuri hadda candhana waa is-ogeyn waa maalin kale nin caloolaha joogayna idin caabudi maayo waa maalin kaloo isaga ay waxyeeleen waa inta mid ku ciiri oo ka kaleeta la ciidni oo dabeedna cididay calooshay ku jirtaa hortada cogtooji kala cawd bilista horta halkaasay maanta ku kala dhaqaaqeen daahir faarax axmed faarax xabad dambe oo daahir faarax iyo axmed faarax la yidhahdaa ismuusa taaban waa guba kaasu gubuu ka bilaabmaa islaan markaa ay isu gabi yihiin qamaan iyo caliloox waa maqnaa baddu ku maqnaa
gabayga waa dhacay labadooda waa isu tuurtuureen gabay cali luux tiriyey baa salaan gabayga ku kalifay haadaaqsi la yidhaah aan kuu qadimay cali luux baa yidhi ogaadeen haruurka iyo sidii hilibka loo boob geeliya habeenkii u lahaayeen looga hadhowaa kolay habar jecyo ciisatina waa ka helayeen haweenkuna markay doonayaan halmaalaan buu gabayga salaan ku kalifay inuu gabyo isaaq ahaan guud ka sokow horta waa gabaygaa markuu maqlo salaan soo dhoofo berberuu yimi gabaygan berberuu ka tiriya haadaaqsi lagu yidhaah burca kama tirin hargeysana kama tirin meel kalena kama tirin berbera ma kusoo dhigaa maqdarad loo dhigay bartee berberuu ka tiriyey haadaaqsi gabay waa nigaan hidini waaya waataan ka hayiray tixda haybadda lahayda halabuurka waa tani qiinay ee haatan gaabsaday balmaan hoo hada iyo wowgu waa kala horeeyana hayrabta mau dhigay intuu nasda daba joojima hagaajay beydgaabku waa kala haleeyaane maantana hiibo waa hiliye hadal yar baan baanay man hawadiyo hoosada barciye herer raggey sidaasaa ku tusaysa inuu ka tiriyey berbera ee aanu ka tirinin magaalooyinka kale man hawadiyo hoosada barciye herer raggeeyena hayrabta mau dhigay intuu nasda daba joojay ma hagaajay beydgaabku waa kala hadleeyeen maantana hiibo waa hiliye hadal yar baan baanay waa aragtii gabayga caliyow laguma helo markaasi waa caliloo caliyow laguma helo geel sidaa wandanaysana hadhuu daatay idinkaa ka qadaha qablihiisiiyo kun haddaad helayso iyo barbaar halabsatoo fuusha kolun baad uhansan lahay alyarada subax qabiilkii hindii maalin buu ka hejiyaa duul haadaan la xadiyo isaa qibeelahaasii man hawadiyo waa dhextaalka gabayga man hawadiyo hoosada burco iyo heer hageeyene hayraabta mau dhigay intuu neesta daba joojay ma hagaaja beydgaabku waa kala hadleeyana maantana hiibo waa hiy yar baanbaan nimankii fardaahan jiriy hagalba waa caydh nimankii hawognaa qab waa lala hadlaaba baxa waa dahoobaan war dheer ugama heesaana hiiraada kama qayliyaan hoga kaliilada waa ka hayaanka ku dhacay hobyo iyo xeelo goortan harkiiba ka ariyey yaad hawdu carartaayo haleelada nin maala ma cuno hilib ugaadheed haleelada nin maala ma cuno hilib ugaadheedee holguduudana haaruun maryaah kama hirmeeyana hirweeyaan humbanida ogaadeen intaad soo hergelinayso shishooruba hoymada kuwa habar wadaagtaan buy markaa dhulbaantaba meel ma haystee maxaad ogaadeen ugu yeedhaysaan shalaan hadaaqsina anugu intaasaan ka haya way ka badan tahay waa 150 bayd laakiin anugu intaasaan ka haya wuxuu qabay gabadh dhulbaanta isna badmar buu ahaa alaabta uu keeno dhar soor waa qaybisa dee reerooba kala siisa inan la yalo waa haslaan dhar buu soo diray oo badda uga soo diray waa loo keenay isna waa ka daba yimi naa dharka maarigilowta markaas dhar ma haysano salaano oo kaalmaantii lowta soo diray me ee hablaha iyo dumarkii waxaasaan kala siiye reeraha markaasuu hadda u sheeg naagtan waxay siday u bixinaysa iyo sidaad usoo heshay adigu inayna isu dhoweyn uga waran naag yahay bardalad waa afindi macnaha nimco ma xajiyaan wey waana afindi bardalad naag yahay bardalad ma xajiyaan birista naagood buu isagu yidhi laakiin waxaa loo bedelay oo soomaalida u bedeshay birista daarood laakiin isagu ma odhanin saa waa ka qabaa daarood moogta markaa ma caayi karo naagi ma guud ahaan buu dumarka u sheegay markaa naag yahay bardalad ma xamilaan birista daarooda bilaashna laguma helin xoolahana badooda deeqsiin waxaa burunjidaydii la tegay bayler iyo seeb badmar buu ahaa siman waxaa burunjidaydii xooggaydii la tegay bayler iyo seeb bayler iyo seeb markab iyo seebkaan ku taagnahay ha waxaa burunjidaydii la tegay bayler iyo seebe waxaad kugu bataba wixii kugu bataba jeerahood baahidad aragto inaad beriga hore quursataa bilidad weeyaan buuri adiga keligaa maaha beriga hore quursataa bilidad weeyaan bili ha caado dadku leeyahay wey adiga keligaa maahae biniaadmigaa wuxuu markaa haystaaba la fuliyahay
waayahay maxaa ku haray salaan gujiskii badda waxau ahaa gujiskan uu isku sheegayaa gabayaaga caana ee isaaqee reer bari markaa isagaa markaa bari uga gabayaasana waxaana isu gabi jireen niman daarooda ama niman dhulbaantaba ah marka gabayaal badan oo ay isu tuurtuureen nimankaa daaro dhulbaantagii ogaadeen ayaa jiray oo kaa hore kusoo jeey ka mid yahay iyo qaar kaloo badan markaa wuxuu yidhi u sheeg haddaba cali dhuux markaa la hadlay gujiskan badda waa caam ahaan waa aararta gabayga laakiin ninku markaa la hadlaya waa cali dhuux gujiskii badda ayaan uga dhignahay gebiga daarooda nin isaaqa godobtiisa bartay ayaan gaadhka ka hayaa kolkuu gaban ahaa markaasuu cali usoo lexay kolkuu gaban ahaa iyo ninku guudka ka cadaaday oo waxaan gardooriye ka tegin godanka ciideed oo waxa aqligu gaaban yahay guurtiina isbixay gorayadaba waa kaa ku yaalla suulka gaabane garhkuba nimuu ka baxay waayo weysgala la xoodshaa garhkuba nimuu ka baxay waayo weysgala la xoodshaay gorayadaba waa kaa ku yaalla suulka gaabani baa iga maqan wanaagsan oo meesha ku jiray gorayadaba waa kaa ku yaal suulka gaabaniye gosol ismoode aadeeryadii guban ku nacdaa isagoo gunaafyo xunxun oo go iyo qayraan leh oo gorofta caydheed sita iyo mid u gangaamele waxaa ii gabayday gaadeeryaan sari lahaa gaadha lowyada meeshay gantadu kaaga taallo garan ma waayana waxay gabayday habar weystaa siisaynaa gubow waa yahay kaasuna waa mid ya dunida jeesha gabayadu waa dhaadheeraayeen waa gaagaaban waxba inta kaayaba kuu sheegaya kuwa qaldi maayo waa wax wada dhaadheer gabi gabal maasaa dunida jeedasha wuxuu weli la hadlayaa axmed farci daahir farci oo kala goyeysi may qortay isaga mid kala goyu leeyahay isne mid kala goyu leeyahay mankaa kuu qadimo salaan burcuu yimi maqdarad baa looga dhigay waxaa la yidhi gabay maqdarad isaga looma dhigin maqdaradu caadi bay ahdo nin kalaa lahaa markaa maqdaradii baa looga yeeray waxaa la yidhi gabay iga daayiri wuu diiday waa lagu qasbay wuxuu wadaba waxay wadaanba nimankii waa ku qasbay inuu gabyo salaan wuxuu tiriyey gabay kala gooya la yidhaha markaa wuxuu kala goynayaa nin walba ninku waxyeelaa fadhida nin inta meeshan wada fadhida yaa godob kala wada haysa oo iskala wada dishay oo nin waliba aabihii ka kala dilay oo nin waliba walaalkii ka kala dilay habar yoonis khaasatan habar yoonis markaa oo maqdaradan u badan ama leba markii laga dan waayo gabaygi waa tiri gabayga wax fadhiya cabdullaahi muusi meesha oo reer xuseen oo la yaqaano caama wuxuu yidhi markaa dhalfi wuxuu yidhi cabdiqodax waa farax xuslaabihi waxa dilay in celijoog oo fadhiya maqdaradda cabdi iyo daahir labadaasubana waa fadhiyaan oo ilma cabdiqodax iyo hadda in afar baa la fadhiyay baana kala hobin iyo saddex baa fadhiya ma kala hobo laakiin rag ilma cabdiqodaxa ayaa fadhiya meesha oo horta la hubo markaa daahir iyo faaraxba faarax susde iyo daahir ninkii aabahoo dilana waa fadhiya waa ina celijoog qayaadeed caaqilkii muuse ismaaciil wuxuu cabdiqodax intuu dhalayba waa dhabakaloojiid cabdiqodax intuu dhalayba waa dhabakaloojiid iyo dhaayaha wejiga saanadii dhabagoo qiiqaysay hadba waxaan la dheeldhimanayaa dhimashadiisii wuxuu maxamed dhuub sare ku helay dhagartii saarayd
iminkaa u dhaiyo karuurna kala dhex jiifaa iminka ayaa u dhaiyo karuurna kala dhex jiifaa dhalfina waxay ku taallaa aniga iyo dhowrka reer gude nimankii ninkii dharbaaxa quureed dugsaday nin dharbaaxa quureed dugsaday dhaqayadeed maaliyo dhashaaday sugtaa xaajadaa dhowrata abid dhimashadu haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaayo dharasho iyo waxbay kaa yihiin mar bay kaa yihiin dheragku xaaraan hadduuse dherag wax tali naagaha dhicin lahaa geeriyaba aabbahoodu dhintay bay dhaxal ka waayeen haddayna dherka caanaa lahayna laguma dhaarteen waxaa iska shabahan halkaa qamaan bulxan waxaan leeyahay calidhuux waa iska galaan halkaa gabaygaa isaga calidhuux waa iska wada leeyihin maya waa dambaysaa weleey haddayna dherka caanaa lahayna laguma dhaanteen iyagoo wax loo dhimin kuwii dhegays ka siinayay dharaar keliya ayuu reer xuseen dhigay sulaaxi cabdillahi ibnu salam waa fadhiya